وأجنها وحصان برنا يدور شدة بن وآدي أدولي بدن أنه هي سنة شرعي لما يسترن وميبي لقى يابو إن وحير ير لقى بدله أو إن دلكو وجوده دور شدة قفي عدكة أما دور شدة توصل سي أمة الصومالية أما شعب الصومالية أي فرصة وجهلان سوى قطعتان ديمقراطية ده دلكان أرنت سومالان وحياهي قضية سومالان وحياهي يعني سومالان وحسوجي تماعي ومدحويني كهري أتكلم حشي هذه أنا كاد حلي إذا أباهن لما يسترك من لماذا أمة الصومالية وحن كانوا أن كوريجي عطسي أن قدرني قرمنا المدوبة وأن وقف قلنا سكورتي كونسل أن وقف قلنا وأن حريني عطسي جاس لابد يكون يسديت بنك إن دورشنا نقول إنه لابد يكون يلا بعتني أفرته سي أن محاكور هذا أفرس إنه كورس جاس لابد يكون لاتين شنطة لاتين لحدة تاسنا وحوي والليجاسي أما دحل ريب أن وقت جل مدة الصومالية بعدما أن لقيتوا كنتم يكوس كهر سيدان حريدو قادني أن نقرن حبين كم ده هالمركلية إن وحكلوا أن قدري قاب كوجو وناكسن أو لوجو سأفجر كره ونقابتين حب كان صارن أما أرمسين بارجح إذا نفتي وجودته أنت أيدي وكوا هذا اللي أو دل كان هدوستان ضدك إيسان لهين أيدي نمبر إيسان لهين نمبر إيسان لهين حد وحوي سكورتي وحده ويسا dhinac walba dhibaato u tahay marka arintaasna runtii meel fiican bay maraysaa oo waxaan rajeynayaa inaad dhameystirto arinta kale oo muhiimka ah oo aan kugu daray xogta aan ku siiyay faylashan ku siiyay waxa kamid ah hadeen cafinta iyada naftigeeda oo adigu aad soo bilowday oo aad heshiiskaas 2016 adigu aad la gashay World Bank iyo IMF-ka annagana afar marxalad aan ka soo gudbinay haddana ay harsan tahay marxaladii ugu dambeysay oo insha Allah haday hawshan socoto waa huba inay soconayso aad wadayso dhameystirkeeda uu yahay sanadka soo socda markaasna ay deen cafintii meesha ugu fiican ay tagayso oo dalka laga cafinayo deemaha lagu leeyahay oo soo taxnayd ilaa maalintan xorriyada qaadanay arrimahaas oo dhan waa dhaxal reeb ama legacy aan iraahdo waxaan rajeynayaa insha Allah in maxaan ku raahday Ilaahay ku fuudeeyo shacabka Soomaaliyeed ama dadweynaha Soomaaliyeed waxaan rabaa inaan uga mahad celiyo shantii sano taageerada ay taageereen iyo sida dhow oo Soomaalinimada leh oo waatinimada leh oo wadaniyada leh ay noola shaqeeyeen waxaan rabaa inaan la dardaarmo aan ku iraahdo inaad la shaqeysaan madaxweynaha cusub Xasan Sheekh Maxamuud la shaqeysaan doorashadii way dhamaatay hadda waxa la galayaa waqti shaqada uu hayo madaxweynahana wuxuu u qabanayaa ummadda Soomaaliyeed saas darteed inaan ku garab galno aan u midowno aan ku taageerno maxaa yeelay waxaan nahay dal ka soo kabanaya burbur aad u qoto dheer aad u faraweyn saas darteedna hal qof iyo laba qof waxba ma qaban karaan shacabka Soomaaliyeed ama ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan inay garab ku siiyaan madaxweynuhu aniga ka ahaantayda waa ku garab taagnahay waxaan ka ballan qaadayaa inaan garab ku siiyo gacan ku siiyo heer walbaba insha Allahna waxaan ku rajaynaynaa inuu Ilaahay ku fuudiyo بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مدحونا سيدو الشيغي مانتا waa maalin oo taariikhi ah oo u baahan in aad iyo aad loo xuso loona xasuusto madaxweynuhu si tartiiba oo nidaam ah ayuu igu wareejiyay xilka dukumeentiyaasha iyo mashaariicda faylasha waaweyn oo madaxweynuhu ka hadlo dhan waan la wareegay dabcan waa tartiib ayaan dib wada akhrin doonaa wada fiirin doonaa wixii macluumaad oo aan fahmi waayeen dabcan walaalkii waa joogaa dib aan ula noqon doonaa waa weydiin doonaa laakiin faylashaas oo dhan maanta waa ka qaaday madaxweynaha sida ciidamada amniga khaasatan waa run ciidamada Eritrea jira muddo dheerna way naga maqnaayeen waana wiilasheenii waa ka shaqaynaynaa sida ugu dhaqsiya badan inay dalka u soo noqdaan oo ay dalkii dib u xoreyntiisa ay qaybta weyn oo ay ku leeyihiin ay ka qaataan waa ciidan Soomaaliyeed dalka Soomaaliya iska leh qofna ma lahayn dal kalena ma laha
taasi waa halkaas inaha kaloo dhanna deyn cafintu way soo socotay haddana way socotaa waqtiyada madaxweynuhu uu sheegay waa waqti aad iyo aad loo rajaynayo inay ku dhammaato kuna dhammaan karto waana ka shaqaynaynaa haddii alla yidhaha inay ku dhammaato wixii dan soomaaliya oo dhan waa waxaynaya intaas kadib waxaan rabaa inaan kusoo gunaanado madaxweynuhu waa mahadsan yahay waana oday soomaaliyeed waana la joogaa meel kasta uu joogo ilaahay idankiisa waana la tasha doonnaa waana muxuu ahaaye iska warqabi doonnaa haddii alla yidhaaho xurmad weyn oo madaxweynenimo ayuu dalkan ku leeyahay madaxweynuhu dal ha joogo dibad ha joogo inuu xoogaal dalkana u noqdo wixii qadaayaadaho waaweyn oo jirana waaye aragnimo iyo xoogaalnimo dheer maadaama uu leeyahay waa wuxuu noqon doonaa qof lagala tashta arrimahaas haddii alla yidhaah sidaa uu madaxweynuhu u sheegay aniguna waa codsanayaa ummadda soomaaliyeed meel kasta ay joogto inaan halkaa taageeradiina idin weydiisanayaa kalsoonidiina buuxdaan idin weydiisanayaa sidaad horeba iigu taageerteen madaxweynahana kalsoonidiisa uu iiga tegayo waa ku mahadsan yahay howlaa noo taallo howlaha waaweyn faylasha waaweyn uu madaxweynuhu ka hadlay oo dhan haddii aanay dadka soomaaliyeed u wada guntanin howl hadda qof keligiis iyo laba iyo lagu dhammaystirkeeda qofku mas-uulka ah wax waa bilaabi karaa ra'yi waa curin karaa waa keeni karaa laakiin ra'yigaas inuu dhaqan galo oo waxtarkiisu ay ummadda aragto waxay u baahan tahay u wada istaagidda ummadda iyo garab istaagidda madaxda dhammaan in la garab istaago madaxweynaha keliya maaha dowladda oo dhan qaybaheeda iyo laamaheeda kala duwan aad iyo aad ayaan mar kale ummadda soomaaliyeed ugu mahad celinaya madaxweynaha aadaan ugu mahad celinaya madaxweyne waa mahadsantahay allah ku joogo waa mahadsantahay cusub ee jamhuuriyadda Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud oo si rasmi ah xilka ula wareegayo iyadoona markaa uu ku wareejin doono madaxweynihii hore Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waxaa soo dhamaaday shirkii jiraa'id labada mudane ay ugu waramayeen saxaafadda hadda waxaa la soo gaaray goobtii xil wareejinta waxaana madaxweynaha cusub madaxweynihii hore uu ku wareejin doonaa calanka jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya waxaa munaasabadda ay tahay mid si rasmi ah ay xilalka u kala wareegi doonaan labada mudane ee jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya madaxweynaha cusub ee Soomaaliya ayaa
xasan sheekh maxamuud iyadoona uu ku wareejiyey maxamed cabdulaahi farmaajo madaxweynihii hore ee soomaaliya iminka waxay u boqoleen dhinaca iyo xafiiska maamulka iyadoona madaxweynaha lagu wareejin doono qaybaha muhiimka ah ee xafiiska qaybihiisa maamulka oo ay ka mid yihiin qoraallada dukumiintiyada iyo waxyaabaha kale ee agabka ee yaalla xafiiska ee markaasi si rasmi ah madaxda u aaday halkaas ayaana ay qaybtii ugu dambaysay ee munaasabadda ay ka qabsoomaysaa waxaa madaxweynaha lagu wareejinayaa qaybihii maamulka ee xafiisyada iminka waxa uu la wareegay guud ahaan xilka madaxtinimada jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya calanka jamhuuriyadda ayaa gacanta midig loo geliyey waxaana sidaasi ku dhammaatay oo ku qabsoontay munaasabadda xil wareejinta ee maanta uu xilka kula wareegayey madaxweynaha soomaaliya brofesor xasan sheekh maxamuud ee 15kii mey lagu doortay teendhada ofisioni oo ay doorteen baarlamaanka labadiisa gole waxaana intaasi ku soo ilaatay munaasabadda xil wareejinta madaxweynaha cusub ee soomaaliya